السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal ku soo dhawaada sheekadaan idiin hayo waxay noqonaysaa beri waxaa jirtay gabadhaasi waxay ahayd gabadh aqli badan gabadha aqliga badan leh ayaa waxay ahayd gabadh ku dadaasha wixii danaheeda ah maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay isbarteen wiilkaasi oo ay isku barteen waddo iyagoo maraya dadka bini'aadanka waxaa jira wax ka helid la yidhaahdo wiilkii gabadhii uu ka helay kadib wuxuu weydiiyey ku yidhi socodkaagaan ka helay sida aad u socotid amaba qaabkaad u laafiyoonaysid ayaan ka helay gabadhii iyo wiilkii halkii ayay isku barteen gabadhii iyo wiilkii markii ay isbarteen ayaa waxaa dhex maray jacaylkii midba midka kale ayuu aada u jecel yahay jacaylkoodii muddo waxay gaadheen 4 sano ah in ay wada socdaan amaba xidhiidh jacayl uu ka dhexeeyo qofba qofka kale uu u soo hiloobo waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah in uu yidhi wiilkii waxa aan tegayaa magaalada aynu degannahay magaalo aan ahayn kadibna magaaladii ay joogeen magaalo aan ahayn ayaabay isku qabsadeen tegi maysid iyo waan tegi iyo tegi maysid dabadeed waxaa dhacday in wiilkii iyo gabadhii ay isku cadhoodaan wiilku wuxuu rabay markaa magaalada ay joogaan magaalo ka fog inuu tago kadibna uu markaasi u soo shaqaysto amaba uu shaqo raadiyo wiilkii oo shaqo raadis ah oo shaqadii ku maqan ayaa waxaa dhacday in ay gabadhii ka xanaaqdo oo ay tiraahdo maxaad u tegaysaa shaqada aad ka rabtaa wiilkiina wuxuu ku yidhi shaqo raadis baan ahay adaan kuu shaqo tegayaa inaan ku guursado oo mustaqbalina dhex maro ayaan rabaa gabadhii waxaa dhacday in ay wiilkii ka cadhootay siday doontaba ha ahaato gabadhii iyo wiilkii waxaa dhex maray xidhiidh kala go-ah wiilkii markaa isagoo cadhaysan ayaa wuxuu tegay magaaladii uu rabay inuu tago oo markaasi uu soo shaqaysto gabadha uu jecel yahay hase ahaatee gabadhii in badan isagiiyo iyada wax xidhiidhi muu dhex marin maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay isbarteen wiilkii kale ee ay isbarteen ayaa waxaa dhacday in qaab walaaltinimo ah ay ku wada socdaan hase ahaatee ragga damac iyo dacri kama dhammaato ayay soomaalidu tiraahda wiilkii wuxuu yidhi walaaltinimada inaga daa hase ahaatee guur baan rabaa inaan ku guursado xataa sheekadu yayna sii dheeraan waa hagaag waxay ku tiri gabadhii bal horta waqti aan ku fikiray waqti baan ku siiyaa inteen leeg baan ku siiyaa buu ku yidhi waxay tiri gabadhii waxaan rabaa inaad isiiso muddo 4 bilood ah oo aan ku soo fikiro kadib wiilkii wuxuu ku yidhi muddo 4 bilood ah waqti dheer ayay qaadanaysaa laakiin waqtiga ii soo gaabi ayuu ku yidhi waxaa dhacday markaasi in ay waqtigii u soo gaabisay muddo 1 bil ah ayaabaan ku soo fikiri inaan ku guursado amaba aynu isguursano iyo in kale inaan raalli ka ahay gabadhani waxay islahayd wiilkii hore aad jeclayd bal ka warsug amaba isagay naawilaysay
hase haatee waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid ah inay bishii markii ay dhammaatay uu ku yidhi wiilkii weli waan ku sugayaa wax jawaabana imaad siinin marxaladaanu aan rabaana marxalad aynu sheeko iyo waxaasi waqtiga iskaga luminayno maaha guur baan kaa rabaa waa wiilkii dambe waa hagaag bay tiri bishii way dhammaatay kadib wiilkii iyo gabadhii waxay ku heshiiyeen in ay markaasi isguursadaan wiilkii iyo gabadhii way isguursadeen gabadhii reerkii ayuu ka soo doonay si fiican buu soo doonay wiilkii gabadhii iyo wiilkii laba qof oo markaasi isku cusub weeyaan hase haddee gabadhan aad bay u maskax badnayd amaba u aqli badnayd waxay ku fikirtay in ay wiilkan maadaamuu yahay ninkeedii ay nolosha dhabta ah la wadaagto waxaa dhacday gabadhii iyo wiilkii inuu ilaahay ubad siiyey oo ubad ay dhaleen amaba ilmihii koobaad ay dhaleen hase haatee wiilkii iyo gabadhii waxaa dhacday in wiilkii sidii ay ka filanaysay oo noqon waayo oo markaasi uunu jacayl amaba naxariis badan aanu tusaynin laakiin naagtiisa uu iskala nool yahay gabadhani way caqli badan tahay waxay dareentay inuu ninkani jacayl amaba aanu siin karaynin haba yaraatee wax la yidhaahdo farxad ah laakiin uu ninkeedii yahay xaqna uu ku leeyahay gabadhii gabadh caqli badan ayay ahayd samir badan ayay markaasi u samraysay ninkeeda muddo aada u badan ayay u samraysay ilaahay ubad badan ayuu siiyey gabadhii iyo wiilkii laakiin gabadhan intaa ay samraysay waxay islahayd mar uunbuu nolosha farxaddeeda ku tusi doonaa sheekadani oo markaasi ah qiso dhab ah oo markaasi aan annagu hayno oo qofkii qisadan ay ku dhacday aan garanayno ayaa waxaan jecelahay bal inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed gabadhan caqliga badan ayaa reerkeedii iska wadatay ubadkeedii iska haysatay ninkeediina walaa farxad bay ka heshaa walaa naxariis bay ka heshaa haddana sidii uu waajibku ahaa reerkeeda iyo gurigeeda iyo ninkeedaba way wanaajinaysay maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday inay ninkeedii kala kulanto waxyaabo isbedel ah sida farxad oo kale oo farxad inuu naagtiisa uu siiyo uu ku fikirayo dabadeed farxaddii iyo isbedelkii uu ninkaasi markaa la yimiday ninkeedu way soo dhaweysay gabadhaasi si kastoo ay ahaataba iyadu mar walba waxay ku taamaysay ninkani waa ninkaygii qofku marka gabadha la guursado samir iyo dulqaad unbay gurigeeda ku hayn kartaa intaa badan ay samraysay haddana hase haatee way la kulantay wixii ay u samraysay oo farxaddii iyo jacaylkii ninkeeda ay ka sugaysay amaba ay ka naawilaysay way heshay sidaa iyadoo ah oo reerkii reer farxad ku nool ay yihiin ayaa waxaa dhacday wiilkii hore ee gabadha ay isjeclaayeen muddada 4 sano ah inuu isaga laftirkiisu u markaasi uu ka yimaado magaaladii uu ku maqnaa isagoo shaqadii iyo dee ku fikiraya ee gabadhii inuu guursado aan wax shaqana aanu helin oo moraal jabsan ayaa magaaladii ku soo laabtay qofkii u horeeyay ee ay is arkaan ayaa waxa uu u sheegay in gabadhii la qabo ciyaal badanna ay leedahay oo nin kale ay xaaskiisa tahay isaga markaasi intaasi dhib iyo murug ugu filan hase ahaatee iyada muu hor imanin ismanu tusin wiilkaasi si kastoo ay ahaataba wiilkaasi bartii maalintii uu fadhiistay ee uu ku naxay ayuu ilaa hadda fadhiyaa qisadani waa qiso dhab ah qofkii ay ku dhacday ayaa waraysi ama xog dhab ah iga siiyay aniga dabadeed waxaa dhacday in wiilkii sidii uu ilaa hadda u fadhiyo amaba jaad amaba wax la mida oonu hore u aqoonin markaas balwadda jaadka bartii uu la fadhiistay ilaa hadda uu la fadhiyo wax mustaqbal ah amaba wax uu ku raadiya amaba wax uu raadinaya ayna jirin totally
gabadhii iyo wiilkii isqabay ayaa farxadoodii laba jibaar sii noqonaysa marba marka ka dambaysa farxad iyo nolol wanaagsan ayay ku nool yihiin. waxaan jecelahay inaad nala daawataan od markaasi commentiga iyo sheerta subscribe-ta aad noogu dadaashaan. sheekadani haddaba maadaama ay tahay sheeko run ah, magaceeda amaba hordhaceeda waxaa loo yaqaanaa gabadhii caqliga badnayd samirkana badnayd. gabadhii caqliga badnayd samirkana badnayd. horta waxaa la yidhi samraa sadkii ma waayo. soomaalidu mahmaah way mahmaahdaa oo run bay mahmaahdaa, laakiin been ma mahmaahdo. samraa sadkii ma waayo ayay soomaalidu tiraahdaa. waxaan ognahay in samirka badan guul amaba farxad ay ka dambayso. waxaad arkaysaa reer qoys ah, gabadh iyo nin isqaba oo markaasi amaba ninku dhib badan yahay amaba gabadhu ay dhib badan tahay. hase ahaatee dumarka inta badan caqliga badan waxa ay dareemaan in ninkan ay guursatay aan loo bedelaynin. ninka marka ay guursato looma bedelayo, laakiin ninku haddii uu naagtu ku xumaato waxaa dhacda inuu naag kala raadiyo, iyadoo waxaad arkaysaa ragga qaarkood ayna gabadhu ku xumayn haddana isagu uu xumaado.